marka ugu horeysa fursaddan caawa waxaan uga faa'iidaysanayaa iyadoo ay tahay maanta 12 abriil waa maalintii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed astaanta u ahayd ee la aasaasay. waxaan halka uga dirayaa dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan, saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo dableyda iyo xaasaskoodaba hambalyo ku aadan 12 abriil. waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay noqdaan ciidamo ku sifaysan astaan qaran oo ka hufan waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed kala geynaya, madaxdooda iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedna inay gacan ku siiyaan sidii u noqon lahayd ciidan sax ah. runtii way jiraan ciidamo fara badan oo xoogga dalka ku astaysan, laakiin xaqiiqadu waxa weeye ciidamada maanta Soomaaliya leedahay ciidamadii saxda ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u baahnaa ma aha ciidamo si sax ah oo isu dheelitiran oo ka turjumaya dhammaan qaranka Soomaaliyeed matali kara. waa ciidamo runtii duruufo kala duwan ku yimid oo qadarinteeda mudan. waxaan rajaynaynaa dadaal midaysan in lagu bixiyo sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo hanta dhammaan amniga xuduudaha iyo madax bannaanida dalka, ka fog inay ku milmaan siyaasadda, ka fog inay fuliyaan falal gaar u ah madax siyaasadeed, hadafkoodu u ahaado sida hadafka ciidamada kale ee adduunka ka jira oo ku astaysan in ay ilaaliyaan midnimada iyo madax bannaanida ummaddaas, xuduudahooda ay ilaaliyaan. gudaha waxaa looga baahdaa markii ay masiibooyin dhacaan inay dadka u gargaaraan. haddii ay dhacdo arrin gaar ah oo qaranku uu ansixiyo oo ay qayb ka mida dalku qalalaase gudo oo waxay ka tari waayaan ciidamada kale amniga sida booliiska iyo kuwa booliiska sidooda u tababaran ee daraawiishta ay wax ka qaban waayaan, in ay keliya ay noqdaan kuwa hawlgal ka gala. laakiin inta kaleeto waxay ku astaysan yihiin ciidamo ilaaliya madax bannaanida. iyo waxaa hadda u dheer ciidanka marxaladan oo Soomaaliya marka laga tago xuduudaha oo qarankii halis ku ah waa argagixisada iyo la dagaalanka argagixisada oo u baahan inay si sax ah uga qayb qaataan. waan ka digaynaa in ciidamada qaranka la siyaasadeeyo, la qabiileeyo, la kooxeeyo, dana gaarana lagu fushado. waan u rajaynaynaa saraakiisha hogaamisa ciidamadu inay sifadaas ku sifoobaan oo ay ku yimaadaan hannaan shacabka Soomaaliyeed u qalma. waana qadarinaynaa duruufta hadda ay ku jiraan iyo sababaha iyo waxa keeni kara. ma oranayno sidii fiicnayd ayaa hadda doonaynaa oo qofka Soomaaliga maxaa yeelay duruuf adag dalka maraya, laakiin waxaan u rajaynaynaa duruufahaas in laga bixi doono. waxaase muhiim ah in siyaasad cad oo saxa lagu dhiso si mustaqbalka loo hiigsado meesha la rabo in la gaaro. intaas markaan uga baxo, dabcan warbixintii ku saabsanayd COVID-19 iyo meesha maanta ay Puntland marayso waxaa jeediyay wasiirka caafimaadka oo si maalinle ah loo tabiyo warbixinta iyo xogta maalin walba ay Puntland marayso. waxaan uga mahadcelinayaa guddiyada kala duwan ee ka shaqeeya sidii looga hortagi lahaa xanuunkan Puntland. tallaabooyinka ilaa hadda ay qaadeen oo runtii ah tallaabooyin la taaban karo, lana arki karo in ay yihiin tallaabooyin iyo siyaasado sideeda hadday u fulaan waxtar ka noqon doonta xanuunkan. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa bahda warbaahinta oo runtii waqti aad u adag geliyey in ay fariimaha ay tabiyaan, ay gaarsiiyaan dadka Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. xanuunkan waa xanuun caalami ah, waa aafo aan kala lahayn muslim, gaal iyo xuduud oo isaga gooshaya dhammaan dalalka adduunka iyo qaaradaha adduunka.
waa cudur dilaa ah oo noociisa horay muddadan aan loo arag cabsi badanna adduunka ku riday adduunka oo dhan mid quwad weyn iyo mid quwad yarba geliyey heegan waa xanuun aan waxba looga qaban karin hub waa xanuun aan waxba looga qaban karin dhaqaale dowladaha haysta waxa keliya wax looga qaban karaa dadka oo u dhaga raariciya awaamiirta la falayo inay ku dhaqmaan runtii dadka reer Puntland waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan ay uga jawaabeen talooyinka uga imaanaya dowladda oo ay u fuliyeen arrimaha ku saabsan ka hortagga arrintan oo ugu muhiimsan tahay in la ilaaliyo isku jirsiga dadku ay isu jirsanayaan oo ah in ay aad u kala fogaadaan meelaha lagu kulmo aysan ku kulmin xaflado iyo shirar iyo dad badan isugu yimaada iyo goobo xiran inay ka fogaadaan inay nadaafadda ku dilaalaan ugu gaar ahaan inay afkooda xirtaan inay gacmahooda aad u dhaqaan inay iska ilaaliyaan wax walba oo viruskaas uu ka soo raaci karo kuna dadaalaan wax kasta oo jirkooda ka difaaci kara viruska oo marka ay ku timaado iyadana la tacaala waxaasoo dhan waxa weeye waxyaabaha tilmaamaha ay madaxda caafimaadku ay bixinayaan waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiyeeyo wasiir dowlihii hore ee cadaaladda ee Hirshabeelle marxuum Khaliif Muumin oo runtii ilaahay ha u naxariistay ku geeriyooday magaalada Muqdisho xanuunkan dartiis kolley qof walba maalintiisa dhaafi maayo ilaahay baan u baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo intii eheladii uu ka dhintay dhammaan ummadda Soomaaliyeed sabir iimaan ka siiyo waxaan aad runtii fursadaas uga faa'iideysanaynaa tacsida ka sokow in uu xanuunkan qof madaxa iyo qof shacaba iyo qof weyn iyo qof yar midna uusan kala aqoon kaliya uu ku kala duwanaan karo sida ay dadkaasi ay tacliinta u qaataan ku saabsan awaamirta ku saabsan siday naftooda u badbaadin lahaayeen arrintaas waa arrin muhiima qodobka labaad waxaan rabaa inaan halka runtii ammaan uga soo jeediyo arday wax ka barta dalka Ethiopia oo reer Puntland oo hadda ku sugan magaalada Buurtinle oo natiijadii xanuunkiisa ay noqotay negative Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh oo maalmihii dhaweyto iyadoo natiijada soo bixin waraysi siiyay idaacadda iyo raadiyaha telefishinka ee Puntland TV oo runtii si xilkasnimo ah oo ku dayasho u mudan uga hadlay mar allaale markii uu dareemay calaamadaha xanuunkan lagu yaqaan qayb ka mid ah inuu la soo xiriiray xarumaha dawladda ee caafimaadka xanuunkan uma baahna in private kala xiriiro waxa la rabaa dawladda in la wargeliyo maxaa yeelay xarumaha private ka oo dadku dhan wada tagayaan ama xarumaha caafimaadka ee dadku dhan wada tagayaan ee dawladda labadaba in la tago laba rabo qofku markuu dareemo waxa la rabaa xarumo gaar ah oo dawladdu u astaysay in qofka lagula tacaalo waxa ugu horeeyo uu qaatay waxa weeye in uu la xiriiro inuu gurigiisa isku kantiilo waxaan si gaar ugu mahad celinayaa dhammaan wasaaradda caafimaadka gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Buurtinle iyo maamulka Buurtinle oo sida uu isaguba sheegay barkiiba adeeg caafimaad siiyay talooyin siiyay ka xiray bulshada inteedii kaleeto oo ehelkii iyo qaraabadii oo in badan waliba arday muddo maqnaa inay soo boqdaan xanuunkiisa ka ilaaliyay waxaan aad ugu mahad celinayaa qoyskii uu ka dhashay oo la gartay iyagana in ay fuliyaan inay dadka kaleeto iska karantiilaan inta jawaabta soo baxayso runtii isaga si fiican uga sheekeeyay xanuunkiisa iyo calaamadihii iyo sidii loola tacaalay iyo wixii ka dhashay waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala runtii casharka laga baranayo maaha inuu ilaahay caafimaadey xanuunka iyo caafimaadka ilaahay baa haya laakiin waxaan uga mahad celinayaa sida garashada leh runtii ardaygaasi uu u gartay waajibka iyo talooyinka uu dadka siiyay oo runtii u baahan inay dhalinyaradu ay kaga daydaan talooyin wax ku ool ah oo ah inay raacaan talooyinka ay hay'adaha caafimaadka dawladdu siinayaan taas ayaa runtii ah midda Puntland maanta dadkeeda aan uga mahad celinayno
taas ayaan oran karnaa ilaa iyo hadda inaan Puntland xaalad dhab oo aan ognahay inaysan u jirin intii calaamadaha lagu arkay oo la karantiilana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay negative intuba ay dowladda ay runtii ay u muujiyeen wada shaqayn inay qaateen awaamirtii in goobihii lagu karantiilay ay aqbaleen inay sugeen muddada jawaabta oo runtii muddo dheer ah maadaama qalabkii uusan dalka oolin oo dibadda la geynayo intaas waxay ahayd wax weyn waxaan ilaahay mahadiisa oo rabaa iyadana halka inaan uga faa'iidaysano inay Puntland ay soo gaareen qalabyadii caafimaad ee muhiimka u ahaa in xanuunka lagula tacaalo laguna baaro inteedii badnayd inta dhimanna waxaan rajaynaynaa maalmaha dhow inay soo gaaraan oo laba qalab weeye qalabkii tastiga lagu qaadayay iyo mashiinkii akhrinayay qalabkii tastiga lagu qaadayay waa yaallaa dowladda imaaraadka ayaa Soomaaliya khaasatan Puntland ugu deeqday qalabkii akhrinayayna waxaan rajaynaynaa in WHO maalin iyo laba maalmood gudahood ay ku keeni doonto taas marka waxay sahlaysaa muddada qofka shakiga qaba uu sugayo jawaabta ku aadan in uu jawaab helo marka taasna waxaan runtii uga mahadcelinayaa wasaaradda iyo wasiirka iyo dadkii dadaalka badan geliyay arrimahaas waxaa muhiim ah in qaybaha kala duwan ee bulshada ay ugu horeeyaan culummada ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatada guud ahaan guddiga in si dhow loola wada shaqeeyo waxaan rajaynaynaa guddiga maalinta ka dambaysa inuu intaan kasii ballaaranayo xubnaha muhiimka u ah dalka loo arko inay arrimahaas ka qayb qaadan doonaan si rasmi ay uga soo qayb galaan way u furan yihiin guddigan guddi dowladda ku kooban ma aha waxaan rajaynaynaa in dhammaan isimada iyo waxgaradka iyo cid kastoo bulshada saameyn kula wax u sheegi karta ama tala haysa inay guddiga ka soo qayb qaadato dowladdu waxay furtay sanduuq loogu talagalay arrimahaas in lagula tacaalo waan uga mahadcelinaynaa intii hadda kusoo shubtay lacagaha oo ay ka mid yihiin muwaadiniin reer Puntland oo runtii ugu horeyso hay-adda caafimaadka salaam oo lacag ku shubtay iyo dadka kale oo aan ka rajaynayno ballanqaadka bixiyay iyo hay-adaha dowladda dawliga aan hayno aan ka rajaynayno inay ku shubaan waxaa kale oo Puntland wasaaradaheeda kala duwan ay wadeen iyadoo ay hogaaminayso wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyadu arrimo ku saabsan waxyaabaha ka dhalan kara xanuunkan saameynta ku yeelan kara bulshada oo ugu horeyso saameynta dhaqaale saameynta bulsho caafimaadka iyo waxbarashada iyo amniga iyo saameynta shaqo runtii guud ahaan ku yeelan doonto runtii dadaal badan baa laga sameeyay meelaha culayska ka jiri doono ribooradaas iyo daraasadahaas iyo qorshayaashaas way soo idlaadeen waxaan rajayn doonaa inaan la wadaagi doono dadka ay khusayso oo ay wax nagala qaban kara maadaama saameyn weyn adduunka oo dhan uu ku yeeshay Soomaaliyana gaar ahaan ugu yeelan doono Puntland uu ku yeelanayo arrimahaas arrinta Puntland ay goor hore qaadatay oo Soomaaliya uga horeysay waxa weeye haddana aan rabno inaan sii adkeyno waxa weeye waa ka hortag wax laga daba tago khayr ma leh waa ka hortag xanuunkan ka daba tag ma leh ka hortagga waxaa ugu muhiimsan inay dadku aqbalaan fariimaha caafimaad ee ugu horeeyaan in ay meel ku kulmeen inaysan salaamin waxaan aada uga digaynaa qaadka kontrabanka ah ee weli soo galay runtii dadka waaweyn qaarkood ay dhici karto inay bulshada meel sare ka joogaan qaarkoodna ay mas'uuliyiinta ka mid yihiin iyagoo qarsanaya dadka waxaa ku sifooba ha ka waantooba waxaan oran lahaa dadkaas ha akhriyaan fariinta wiilka dhalinyar maxamed cabdiraxmaan iyo sida uu cabiray markuu xanuunka arkay haddaan xilkasnimo lagu darin arrimaha dhacaya waxa weeye wax aan hadhow laga soo kaban karin baa dadka gaaraya waad ogtihiin dadka oranaya muslimku ma dhaco waad aragtaan dee Soomaali oo Soomaali gudaheeda dhimatay dadka faraha badan ee Ingiriiska ku dhintay Soomaalida ku dhimatay sidii la sheegay 100 wax ku dhow haddaysan ka badnayn weeye Sweden bay ku dhinteen Mareykanka ay ku dhinteen meel walbay ku dhimanayaan dadka muslimiinta Ingiriiska dhakhaatiirtii muslimiinta ahayd iyo dadkii kale oo dhan ba ku dhimanayaan xanuunkan waa aafo rabbaani ah
oo aan cad iyo madow iyo muslim iyo gaal iyo diinta iyo wuxuu aaminsan yahay aan shaqo ku lahayn bini aadan waa bini aadan organno isku mid uu ka tirsan yahay organno isku mid uu ka samaysan yahay wax uu ku kala duwan yahay qaab dhismeedkiisa ma aha xanuunadana si isku mid u dhaca marka culimmada waxaan aad u rajaynaynaa inay wacyigelinta badiyaan inay aad u yareeyaan kulamada masaajidada qof walba cibaadadu waad ogtihiinoo nin qofka marna lagama dhaafin salaad xataa haddii uu inta kale ilaa uu wacyiga uu ka tago waxba kala garanay inta kale uu wacyiga joogo hadduu xataa istaag ku tukan waayo fadhi buu ku tukan hadduu fadhi ku tukan waayo jiif buu ku tukan hadduu jiif ku tukan waayo xataa ishaare iyo far buu ka tukan marka ummaddu inay tukato iyo in masaajidka lagu tukado farqiga u dhexeeya qof walba waxaa la rabaa wuxuu ku tukan karaa gurigiisa masaajidada mararka qaarkood xataa qof waa loogu tukan karaa laakiin waxa ugu daran waxa weeye jamaca iyo in sidii marka jamaca lagu tukanayo arrimihii ka dhalanayo oo ah in dadku isu dhowaado oo garbaha iyo cirbaha isi saaro haddana waxa weeye qofka labada qof markay ugu dhow yihiin waa inay 6 feet soo saas ma dhakhaatiirta lahayn ilaa 2 mitir 2 mitir ama 3 mitir 2 mitir inay isu jiraan baa laga rabaa hadda salaad jamaca oo 2 mitir la isku jiro ani hadda ma garan karo culimadu hadday saas oranayso waa wax kale laakiin qof in loo tukado ayaa anigala haboon masaajidada maalinta jimcada la joojiyo sida dalal badan ka dhacday xaramkii ayay ka dhacday waad ogtihiin dowladda sacuudiga si rasmi ah ayay u joojisay cimradii maaragtay xilliga xajka oo cimrada marka ugu fadli badan ahayd masaajidkii bay kontrooshay oo xirtayba sida warbaahinuhu sheegayaan marka dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed iyo Puntland culimadooda waxaan ka rajaynaynaa inay dadka u sheegaan wacyiga saxda arrintan dhayalsi ma leh dowladda Puntland iyo dowladda Soomaaliyeed waxaaba inta uga sii daran ilaahay kuma keenay awoodda ay wax uga qaban karto way kooban tahay marka digid ayaa runtii nala gudboon awooddeena imkaaniyad aad bay u kooban tahay dadkeena oo li'aanayana indhaha kama fiirsan kari doona hadhow waxa aan qaban karno way koobnaanaysaa wadamadii dhaqaalaha iyo awoodda hayay ayaa ku filnaan la marka waxaan rajaynaynaa in dadku ay nala fahmaan waxaan rabaa inaan halka uga soo jeediyo ganacsatada reer Puntland runtii go'aamadii hore aan soo saarnay annagoo eegayna saamaynta uu yeelan karo quutul daruuriga si aan u xakamayno dawlad ahaan waxay la mid noqotay raashinka waddanka yaala inuusan waddanka ka bixin oo Puntland gudaheeda lagu isticmaalo si loo ilaaliyo in uu yaraado arrintaas waxaan rabaa inaan si cad ula hadlo ganacsatadu anigana way ila soo hadleen waxay codsadeen in la kulmo waxa ay guddigii la kulmay u sheegeen inay hayaan stock ku filan iyaga iyo suuqyadii markii hore ay la macaamili jireen oo dhinaca Ethiopia iyo ilaa iyo bartamaha Soomaaliya waxay noola muuqatay annaga dawlad ahaan waxa mas'uul naga saaran waa dawladda maamulka dawladda xubinta ka ah dawladda federaalka ee Puntland dadkaana annaga mas'uuliyad naga saaranta dawladda Soomaaliyeed Soomaaliya oo dhan baa mas'uuliyad ka saaranta laakiin annaga dadkaana mas'uuliyad naga saaranta go'aankaas waxaan ku dhisnay dadka reer Puntland annagoo walaalaheena kaleeto ee maamulada qadarinayno laakiin waxa la yiraahdaa ninkii tiisa daryeelaa tu kala ku daro markaan teena hubinno ayay tahay dan kale inaan ku darno ganacsatadu waa ay ka duwan tahay wax ay mas'uulka ka yihiin maxaa yeelay waa ganacsatada Soomaaliyeed Puntland kaliya ma aha Soomaaliya oo dhan iyo geeska Afrika bay mararka qaarkood dekedani ay fiirgaraysaa laakiin go'aanka annaga aan qaadanaynay go'aan ganacsi ma hayna go'aan dawladeed buu ahaa oo mas'uuliyadda dadkaan aan ku dhisaynay waxay nagu qanciyeen inay hayaan stock ku filan waxay nagu qanciyeen in wax badan ay soo socdaan waxay nagu qanciyeen inaysan saameyn ku yeelan doonin waxa baxaya kororka sicirka iyo isdhinka waxay isdhimaan markii ay yaraadaan ay qaaliyoobaan waxa hadda soo baxaysa in badeecadii ay kor u kacayso runtii arrintaas ganacsatada waa mas'uuliyad darro iyo ballanka bax
waxaan rabaa inay isku noqdaan ballantii ay qaadeen ay fuliyaan annagu ballantii waa fulinay inaanan xirin waa fulinay inay socoto waa fulinay laakiin inay intay ballantaas qaadaan haddana sicirka kordhiyaan kama aqbaleen ciddii ballantaas ku jirtay oo ku caddaato weliba shirkadaha waaweyn ah ee runtii waan la xisaabtamaynaa hadday noqdaan kuwa ku kordhinaya iyaga waxaan kaloo intaas aysan mas-uuliyaddood qaadi karin ganacsadiina laga shiray markay ka gataan oo retailerka hadday ku daraan taas waa wax u taalla dowladda hadday taasi dhacdo marka guddiga oo maanta arrintaa ka shiraayay waxaan iyadana rabaa inay si saxa hoos ugu eegaan qiimaha korodhay ee la sheegaya yaa sababay waa muhim arrintaas in la xaqiijiyo mas-uuliyaddana ciddii leh ay qaadato ma rabno dadkan in badeecadu ku kacdo ma rabno in laga faa'iidaysto xaaladda adag ee lagu jiro sax ganacsigu suuqaa xukuma oo waa xor laakiin maanta dalku xor ma ah maanta dalka cadow baa kusoo duulay coronavirus la yidhaha covid-19 la yidhaha dowladdu waxay u dhaqmaysaa sidii inay difaac ku jirto iyadoo dagaal ku jirto adduunka dhanna saas u dhaqmaya marka ha ogaadaan ganacsatadu siyaasadda dowladda ay wax ku dhisayso waxa waa dowlad dagaal ku jirta oo dadkeeda rabta inay badbaadiso waxaan rajaynaynaa inay dadka nala badbaadiyaan iyagoo qayb ka ah bulshada runtii muhiimka u ah dowladnimada waxaan kaloon si gaara ula hadlayaa culimada oo la rabo dowrkan ka weyn inay qaadato waxaan u rajaynayaa culimmadu masaa'il aan meesha oolin inay aadin jaynu ka bilowday iyo jayna dembi bay gashay iyo waxaas waa hadal khuraafaada oo meesha oolin jayna waa dal weyn dad muslimiina iyo dad kiristaana iyo kuwa buuda iyo wax walbaa ku nool qof walbana ilaahay wuxuu la hortegi doonaa camalkiisa dowlad kasta dembiga ay gashan iyadaa mas-uuliyad ka leh bulshada korkeeda dad badan oo muslimiin ah ayaa meel walba lagu dhibaateeyaa kuwo badan ayaa iyagu wax dhibaateeya iskuma xirna waxa aan ka hadlayna waa cudur faafaya oo cid gaar u ahayn waxaan rajaynaynaa culimmadu inay bulshada manaabirta ay joogto ay uga gudbiso fariimo mas-uuliyad ah oo aqoon iyo xaqiiqo ku dhisan dowladda puntland waxay leedahay wasaarad arrimaha diinta iyo awqaafta u xilsaaran dowladdu waxay leedahay culimo waxaa jira culimo waaweyn oo dalka joogta oo ay mar walba la tashato qof kasta inuu siduu rabo isaga hadlo waxay dhaawac gelinaysaa midnimada iyo arrimaha ay ku saabsan diinta oo bulshada intooda badan ay ka qaataan culimmadu manaabirta ay joogaan waa manaabir u baahan si mas-uuliyadda in looga dhaqmo waan rajaynaynaa qofkii aanan mas-uuliyadda heerkaas gaarsiisnayn waxaa la rabaa inuu manaabirta masaajidada inuusan ka hadan waxaan rabnaa guddiyada maamulo masaajidada qofka khadiibka noqonaya iyo qofka tacliiqa samaynaya iyo qofka dadka tujinaya inay noqdaan dad u qalma mas-uuliyaddaas aqoonta iyo mas-uuliyadda mararka qaarkood farqi baa u dhexeeya dad badan oo aqoon leh oo aan mas-uul ahayn baa jira dadka in lagu khaldo lama rabo hebel aqoon buu leeyahay aqoontu dad badan baa leh laakiin waxaa la rabaa qofku meesha uu joogo mas-uuliyaddeeda inuu leeyahay waan rajaynayaa culimmadu inay arrintaas sida ay tahay ay u qaataan waana rajaynayaa inay dowrka ay leeyihiin cayaaraan waxaan rajaynaynaa dowlad ahaan inaan gacan ku siino weliba dowrkooda inuu noqdo dowr hogaamineed oo ay bulshada hogaamiyaan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa istimada cuqaasha nabadoonnada inay dadkooda la hadlaan ay saamaynta ku leeyihiin marka ugu horeysa inay iyagu qaataan inaan dagaal ku jirno ku saabsan inaan nafta badbaadino inaan bulshadeenna badbaadino ay nala qaataan iyaguna ay qayb ka noqdaan sida ay dadka loo badbaadin lahaa arrintan waa inaan la dhayalsan waxa ay sheegayaan warbixinadu inuu faafayo gudaha Soomaaliya iyo Afrika oo uu hadda kusoo wajahan yahay ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu masaa'ibtana hareer mariyo waxaas ugu muhiimsan in la ilaaliyo bandowga in la ilaaliyo qaadka inuu soo galo
in dadka iyo meelahay ku kulmaayaan la ilaaliyo inaan la ogolaan hadda wixii ka dambeeya waxay soo saari doontaa awaamiir dawladdu guddigu soo saari doonaa markii hore ha yeelinaba hadda waxay noqonaysaa wixii yeela ciqaabtii lagu fulin lahaa in la sheego qofkii xad gudub sameeya ciqaab ayaa ka ratimi doonta qofkii lagu arko waxyaabaha reeban inay isticmaalayaan ama samaynayaan ama meheradaha samaynaya ama dadka arrimaha ku taxalluqa haddii ay wacyigelintii iyo sheegii wax u qaadan waayeen waan qadarinaynaa dadkeenna wax ku cusub weeye kulama aanan degdegin inaan idhaahno tallaabaan ka qaadayna kulama aan degdegin muddada hadda bisha ku dhoweyd oo qaylo dhaantan socotay oo arrimahan waad ogtihiin dowladda Puntland waxay bilowday ka hortagaan horaantii bishii koowaad Janaayo ayay waxay ka bilowday inay dadka soo degayay ay kontrolsho waxay bilowday inay xarumo caafimaad oo karantiina samayso waa meeshii ugu horeysay maamulkii ugu horeeyay way Soomaaliya iyo dalal badan oo waliba Afrika ah inay measurementigaas ay qaadato Soomaaliya mar hore ayay Puntland qaadatay ilaahay ka sokow oo runtii ilaahay naga badbaadiyay waxaan oran karnaa dadaalka la sameeyay qayb bay ka tahay hoos u dhaca Puntland maanta jirto haddaan ka sii badanina waa la hubaa inaan la mid noqon doono dawladihii sida adag u qaateena raydka faafidda ugu yaraaday kuwii si sahalka u qaateena raydka faafidda ugu kobco marka waxaan rajaynaynaa annagoo tabarteena og inaan noqono dadka sida dhabta u qaatay si aan u yareyno raydka saameynta uu ku yeelan doono faafidda aad baad u mahadsantihiin fariintayda maanta oo runtii inta badan wasiirada iyo ay sheegi jireen sababta aan maanta anigu u imid waxa ugu muhiimsan inaan si adag u xoojiyo xaaladdu inayna ahayn xaalad la dhayalsan karo kaysaska hadda la sheegay Soomaaliya sida guud loo sheegay ilaa 22 baariboorada ku soo baxay laakiin waxaad ogtihiin raydkaas intaa waa uu ka badan yahay maxaa yeelay dadka aan xarumaha caafimaadka la soo xiriirin baa dhici karta dad badan oo cuqdad ka qaba oo aan sida hadda la sheegayo ama aan fahmin dabeecadaha ama u qaatay xanuuno kaleeto ayaa badan ama dadka meelo aysan gaarsiisnayn adeegyada cid ay la hadlaanba ay gaari kartaa jirta duruufta Soomaaliya marka intaasba waxay cabiri kartaa inuu intaa ka badan yahay waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu naga hayo fariinteena ku aadan waxa weeye in si sax loo qaato fariimaha caafimaad ee dawladda ka soo baxay aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi